agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada gaadiidka iyo cirka Cumar Cabdilaahi Aadan Cumar Sayid oo weelinaya la taliyaha wasiirka duulista iyo hawada Axmed Cumar Cagadable ayaa sheegay dhamaanba inuu burburay shirkii ay u yimaadeen magaalada Nairobi oo ujeedadiisu ahayd in lagaga wada hadlo hawlihii dhinaca duulimaadada hawada ee Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay taasoo shirkaasi ku soo gacan saydeen dhamaantiina ay ka soo baxeen agaasimaha iyo la taliyaha oo shirkan jaraa'idku ku weelinaya safiirka Somaliland u fadhiya dalkan Kenya Ali Hussein Ali Shombe ayaa agaasimuhu wuxuu si cad ugu qeexay inuu dhamaanba shirkaasi qaadiceen kana soo bixeen kadib markii ay u arkeen in hay'adda ECAWA aanay dhexdhexaad ka ahayn shirkaasi ay tahay mid dhinaca qura la soo saxaatay heshiis horle oo ka baxsan heshiiska ay Somaliland iyo Soomaaliya dhinaca hawada ay hore ugu soo saxeexdeen dalkaasi Tugriga magaalada Istanbul agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Cumar Sayid isagoo arrintaasi faahfaahinayana waxa hadaladiisi kamid ahaa maalintii salaasada bishii 7 ayaan ka soo ambabaxnay magaaladii Hargeysa iyo dalkii hooyo aniga iyo la taliyaha wasaaradda duulista hawada Axmed Cumar Maxamed Axmed Cagadable si aan uga qayb galno shir ay nagu casuumtay hay'adda duulimaadada ee ECAWA oo shir farsamo ahaa oo halkan Nairobi lagu casuumay annaga iyo guddi farsamo oo dhigayga ah oo dalka Soomaaliya ka socday shirkaas oo ujeedadiisu ahayd in bal farsamo ahaan la isla soo dhaweeyo habkii iyo hanaankii hawada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya labada dhinacba uga wada faa'iideysan lahaayeen runtii aad iyo aad baan uga xunnahay hay'adda ECAWA inay qol madow heshiis kula gashay dawladda Soomaaliya meeshana lagu soo bandhigay daraaf marnaba aan ka turjumayn maslaxadda shacabka reer Somaliland markaanu eegnay daraafkiina eegnay dawladdiina la wada tashi la sameeyay dawladdii dhexe waxa go'aan lagu gaaray inaanu shirka ka baxno annaga oo markii aan gudaha joognayna goobjooga sharafeed ahaa safiirka Turkiga oo qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya aan hortooda ka sheegnay in tiraba 3 jeer lagu heshiiyay in hawada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya Somaliland iyo Soomaaliyaba 3 jeer dawladda Soomaaliya ay saxeexday in xarunta hawada laga maamulaya ay Hargeysa noqoto sidoo kalena khubaradii hay'adda ECAWA soo dirtay ee assessment-ka sameeyay ay si cadaan u cadeeyeen in meesha ugu haboon mashruuca la geyn kara ay Hargeysa tahay haday tahay xagga nabadgelyada iyo haday tahay xagga kale ee adeegyada kalaba sidaa darteed waxaanu nimid shir runtii iska majara habowsan oo aan wax tixgelin lagu siinin dhammaan heshiisyada hore aan u galay lana doonayo inaanu meel cusub ka bilowno oo eber ah arrinta runtii waanu diinay waanu shirki ka baxnay wixii ka yimaadeen dhibana waxa mas'uulka ah hay'adda duulimaadada ee ECAWA oo runtii qadiyadda Somaliland ka xaglisay aan marnaba goobtii dhexdhexaadka ahaayeen ku rabnay aan istaagin annagoo soo jeedinayna wadahadalku mar walba uu furan yahay waxa shuruudda koobaad ay tahay in heshiisyadii Turkiga ee lagu galay ahaa in si wada jira oo laba guddi oo Soomaaliya iyo Somaliland wada leeyihiin oo siyaasadda ka madax bannaan hawada ay maamulaan qadiyadan shirku intii uu socday hadii aan xafiiska Nairobi ee Somaliland si dhow ula socday waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa agaasimaha iyo la taliyaha oo xilligii ay Hargeysa ka soo duulayeen xafiiska la soo xiriiray una sheegay shirka inay imanayaan maadaama ay arrin xasaasi ahaydna ay ahayd lama maarmaan xafiisku si dhow ula socdo shicibka Somaliland waxaan iyagana u sheegayaa qadiyadda Somaliland ay tahay waxaan gorgortan galay nasiib darrada maanta ka taagan meesha ka timidna ay tahay hay'adda ECAWA oo ahayd inaanay arrin siyaasadeed gelin iyadoo ay siyaasad gashay heshiiskii ay labada dawladood gaareenna ay dhinac inta isaga riixday iyadoo dhinac ay la soo heshiisay Cabdilaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Nairobi